السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجال عاصمة مقدشو وحا مالنتا بريتا كسو أفجار بدونا برامجكي أها أناغا أيا إسكاله مقدشو إيو أناغا أيا إسكاله مقدشو هادبا قضبادا سو أفجار أيو إيا فافاهنو أريمهاسي كسابسان أيان هالكان كوغولا بداغيا وحاسمار كوريكا عصانا يا إناد مقال كنسيو قدبسو ليغريسو شيرغريسو لانسي وداكتا أصحابتا haddii aadan ka mid ahayn inta nagu xiran hadda ku soo biir boggeena oo follow soo dheh. Waxaa maalinta berita ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 26-ka bisha April soo afjarmay guud ahaan arrimihii keenay in qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda ee Muqdisho isla markaana ah dhalinyaro caasimadda ku dhaqan in ay isku gacan qaadaan isgaraacaan kadibna xabsi loo taxaabo ilaa ugu dambeyntii xukun uu ku dhaco. Gabdhahaas waxay u kala safnaayeen sidaad ogtihiin laba garab oo midba sheeganayay in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan u dhaxeeya in mid kasta uu leeyahay anaga ayaa iska leh. Haddaba taas waxaa maalinta berita ah loo qorsheynayaa in si guud loo soo afjaro sheegashada gaarka ah ee Muqdisho iyada oo sida caadiyan ay tahay caasimad qof gaar ah aysan lahayn ha yeeshee qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed sidaasi laga dhaadhiciyay. Tan waxaa caddeyn u ah in la soo afjari doono maalinta berita ah waxaa degmooyinka kale ah Kaaraan, Warta Nabadda ama Wrigley, degmada la yiraahdo Hodan iyo kuwa kale oo howlgab ay ku jirto ka dhici doona diiwaangelinta qaadashada kaararka codeynta hadiiba ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah. Haddaba waxay taasi cadeynaysaa haddii si sax ah doorashada ay u dhacdo oo la codeeyo in meesha laga saaro ama ay ka saarmayso barnaamijkii ahaa anaga ayaa iska leh Muqdisho iyo anaga ayaa iska leh. Taasina waxay ku dhici kartaa in la qabto doorasho qof iyo cod oo xalaal ah oo aan lagu shuban si aysan u soo laaban sheegashada anaga ayaa iska leh iyo anaga ayaa iska leh oo ah wax aad looga xumaado isla markaana aysan habooneen dhalinyaro iyo mas'uuliyiin in wax noocaas oo kala ah afkooda uu ka soo baxo. Haddaba diiwaangelinta berito oo 26 ah ay dhacaysaa adiga ka ahaan marka mu aragtaa in ay soo afjarmayso sheegashadaasi labada dhinac ahayd oo aan rabin inaan carabka ku dhufto dhinacyada gaarka ah oo ay u dhaxaysay. Qaybta hoose ayaa aragtida ku dhiiban kartaa muuqaalkeena waxaan ku leeyahay si gudbi leegare shargare oo la sii wadaaga asxaabtaada. Caasimadda waa caasimad sida caadiyan loogu talagalay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu ku noolaan karo, ka soo muuqan karo, xilka qaban karo, xorriyad uu ku heli karo. iyadoo sidaas ay tahay haddana waxaa inta badan dhicisay in qolo iyo qolaba ay sheegtaan. Haddaba adiga ka ahaan mu aragtaa in arrintan haddii si sax ah loo wajaho ay meesha ka baxayso degmooyinka gobolka Banaadirna xil uu ka qaban karo qof kasta oo loo arko in uu wax ku soo kordhin karo. Sidoo kale madaxtooyadana xil uu ka qaban karo qof kasta oo loo arka in dadka Soomaaliyeed waxtar uu u leeyahay halka hadda dadka xilka qabta ay yihiin kuwa awood qaybsigii mar hore la dhisay lagu saleeyo. Haddaba waxaan arkaynaa maalinta berita iyo sida wax u dhacaan iyo soo afjaritaanka arrintan hadda aan idin sheegayo iyo kala riixashadii ka jirtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.